Assalaamu calaykum. Waa mar kale iyo warbixin cajiib ah. Maxaad kala socotaa daarta ugu dheer caalamka? Dabaqa ay hoostiisa maraan daruuraha. Waa mawduuceena maanta. Burj Khalifa, dhismaha ugu dheer caalamka. Dabaqa ay hoostiisa maraan daruuraha. Dhisidii Burj Khalifa kaliya dunida uguma dhignayn inuu noqonayo dhismaha ugu dheer caalamka. Sidoo kale wuxuu astaan u yahay awoodda aadanaha, fikradihiisa hal-abuur iyo sancooyinka cajiibka ee dunida. Waxaan halkan kugu soo gudbinayaa dhowr iskoor oo dhismahan cajiibka dunida u diiwaan gelisay oo ilaa hadda aan la wadaagin. Burj Khalifa waa dhismaha ugu dheer dunida oo gaarayo 828 mitir oo dherer ah. Sidoo kale waa dhismaha ugu dheer ee iskis u taagan oo aan wax kale ku tirsanayn ee loo yaqaano tallest free standing structure. Si la mid ah waa dhismihii ama sancadii ugu dheereed ee abad bashar ku hindiso taariikhda inta la og yahay. Daarta Burj Khalifa waxay leedahay tirada ugu badan ee dabaqyo ah, kuwaasoo gaarayo 163 dabaq. Si la mid ah waa dhismaha leh dabaqa ugu sarreeya dunida ay dad degan yihiin, waana meesha ugu sarreysa dunida ay dad istaagaan si ay dunida hoos ugu soo eegaan. Sidoo kale waa dhismaha leh wiishka jara masaafada ugu dheer ee kor loo socdo. Xaqiiqooyinka kale ee Burj Khalifa leeyahay waxaa ka mid ah in qalabka lagu dhisay dhismahan sida shubka iyo wixii la mid ah uu gaarayay ilaa 110,000 oo tan oo u dhiganta 100,000 oo maroodi wax ka badan. Si la mid ah aluminiumta ku dahaaran dhismaha ee lagu naqshadeeyay ayaa u dhiganta culays ahaan 5 diyaaradood oo ah nooca Airbus A380, taasoo ah diyaaradda ugu weyn ee rakaab qaado dunida. Dhererkiisa oo ah 828 mitir ayaa ka dhigaya mid aad u dheer oo ka dhex muuqdo magaalada uu dhaco ee Dubai. Wuxuuna 3 jeer ka dheer yahay birta dheer ee Paris ee loo yaqaano Eiffel Tower. Mararka qaar dhererkiisa xad-dhaafka ee daartan ayaa sababto in daruuraha ay ceeryaamadu hoos maraan dabaqyada dhismaha, taasoo samaysa muuqaal aad u cajiib ah. Waxyaabaha cajiibka ee lagu tilmaamo Burj Khalifa waxaa ka mid ah in muuqiisa laga arki karo meel u jirta 95 kiiloomitir, taasoo ah in ka badan inta isu jiraan Hargeysa iyo Wajaale ama Muqdisho iyo magaalada Jowhar. Taasoo ka dhigan in haddii dhismahan Burj Khalifa ku oolaan lahaa Muqdisho, muuqaalkiisa laga arki lahaa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Sanad walba in ka badan ama in ku dhow 50 milyan oo litir oo biyo ah ayuu u isticmaalaa dhirta ku taala hareerihiisa iyo biyaha cayaara ee loo yaqaano dancing water, kuwaasoo loogu talagalay soo jiidashada dadka soo booqanaya daartan Burj Khalifa. Sidoo kale wuxuu leeyahay wiish aad u dheereeyo kaasoo halkii ilbiriqsi jari karo masaafo 10 mitir ah, taasoo ka dhigan in dabaqa 124aad uu ku gaari karo wax ka yar 1 daqiiqo. Dhismihii daartan aadka u weyn waxaa halkii maalin ka howlgelayay ilaa 12,000 oo shaqaale. Si loo dhammeeyo dhismahan cajiibka waxay qaadatay in la isticmaalo in ka badan 110,000 oo tan oo shub ah, 55,000 oo tan oo bir ah, iyo 22 milyan oo saacadood oo ah 6 sano ee dhismuhu sida tooska uga socday xarunta. Dhismahan wuxuu leeyahay maqaayadda ku taala meesha ugu sarreysa dunida, taasoo dhacda dabaqa 122aad, mana jirto maqaayad ka sarreysa dunida. Sidoo kale waa dabaqa leh barkadaha dabaasha ee labaad ee ugu sarreeya dunida, taas oo ku taalo dabaqa 77aad ee dhismaha. Haddii aad booqatid daartan aadka u dheer, waxaad qorax soo baxay arki kartaa 2 mar oo kale ah haddii aad joogtid meesha dhulka laga daawado ee sare iyo dabaqa ugu hooseeyo. Taasoo la micno ah waxay qoraxda kugu soo baxaysaa dabaqa ugu sarreeya dhismaha, adigoo haddana isla markiiba aadi kartid dabaqa ugu hooseeya oo aan weli qoraxda u soo bixin. Dhismaha aynu ka hadlayno ee Burj Khalifa waxaa dhismihiisa la bilaabay January 2004, waxaana la soo gabagabeeyay 2009, iyadoona xarigga laga jaray ama la furay bishii January sanadii 2010. Tan iyo 2009 waa dhismaha ugu dheer dunida, wuxuuna iskoorkaas ka haystaa muddo ka badan 12 sannadood. Wuxuuna kaalinta kala wareegay dhismihii Taipei 101 oo ahaa tan iyo 2004, oo isna booska kala sii baxay daarihii mataanaha ah ee Malaysia. Daartan aadka u dheer waxaa iska leh shirkadda dhismaha Imaaraadka ee loo yaqaano Imar,
waxaana loogu magac daray Sheikh Khalifa oo ah madaxweynaha Imaaraadka. Lacagta ku baxday dhismahan waa 1.5 bilyan oo dollar. waana astaan dunida aad uga caan ah oo ka mid ah sancooyinka ugu cajiibsan ee bini'aadamku dah qaado. naqshadeeyaha Burj Khalifa waa Adrian Smith oo ah naqshadeeyahanka ugu caansan dunida, kaasoo dhismayaasha ugu dhaadheer ka dhisay caalamka. Adrian Smith waa nin dhalasho ahaan Mareykan ah, haatan gacanta ku hayo dhismaha Jeddah Tower oo la filayo inuu booska kala wareego Burj Khalifa, iyo dhismaha isaga booska kala sii wareegi doono ee Azerbaijan Tower. naqshada dhismaha Burj Khalifa waxaa laga metelay ubaxa loo yaqaano Isbeda Lily ama Hibiscus flower oo ah ubax sal adag leh. waa goobta qaabisha dalxiisayaasha ugu badan dunida ee soo booqda magaalada Dubai. sanad walba in ka badan 2 milyan oo qof ayaa timaada dhismahaas, kuwaas oo gaara dabaqa 124aad, iyagoo daaqada sare ka daawado magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta.